ለደረሳችሁ በሶማሌ ክልል መንግስትና በራሴ ስም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። qalinjabiyaasha iyo waalidiinta ardayda qalin jabinaysayba dadaalka iyo juhdiga aad ugu jirteen waxbarashadiina sanadii badnaa ee aynu soo dhaafnay xiiso badan iyo kalgacalna aad u qabteen inaad halataan guushii aad gaadheen isla markaana aad soo gaadheen maalintani taariikhiga ah ee maanta ayaa waxaan anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda dawladdeegaanka Soomaalida aan idin leeyahay bagaad ku faraxdeen qalinjabiyaasha qaaliga ah ee sharafta mudan marwooyin iyo mudanayaal waxbarashadu waa tubta kaliya wadan iyo shacabkiisu ay ku gaari karaan horumar iyo waana xeelada kaliya aan kaga gudbi karno dhibaatooyinka ka shakhsi ahaan iyo ka dal ahaanba mar walba nala soo darsa dalkeena Itoobiya waa hoyga ilbaxnimada qadiimiga ah waa halka ay dadku ka farcameen isla markaana leh hidaha caadooyinka dhaqan dhaqaale iyo madax banaani waana hoyga halabuurka sooyaalkii la soo dhaafay inaan ka baxno ilbaxnimadii qadiimiga ahayd ee uu dalku lahaa hoosna uga dhacno halkii aan taagnayn ee uu caalamku nagu ogaa isla markaana aan ka mid noqono wadamada faqriga iyo dib u dhaca inkasta oo ay jiraan asbaabo kala duwan oo loo aaneeyo arrimahaas balse arrinta ugu weyn ee uu qof waliba aamini karo ee xaqiiqda ah waa dib u dhaca ku yimid nidaamka waxbarashadeena waxayna dawladdu garwaaqsatay in dib u dhaca si kaliya lagaga gudbi karo waxbarashada isla markaana waxbarashada iyo tababaradana ay dawladdu siisay fiiro gaar ah kuwaasoo ay ka mid yihiin ballaarinta goobaha waxbarashada sare ee jaamacadaha kor u qaadista xaddiga qaabilaadda ardayda iyo kobcinta aqoonta barayaasha kuwaasoo laga gaadhay natiijooyin wanaagsan ውድ ተመራቂዎች ክቡራትና ክቡራን ኢትዮጵያውያን ከሚለያዩ ጉዳዮች በላይ የሚያግባቡን ዓለም ያስደምሙ የጋራ እሴቶችና ታሪክ አለን። qalinjabiyaasha qaaliga ah ee sharafta mudan marwooyin iyo mudanayaal annaga muwaadiniinta Itoobiya arrimahan ku kala duwannahay waxa ka ballaaran oo ka mugweyn arrimahan ka midaysannahay ee aanu heshiiska ku nahay ee hidaha dhaqankeena iyo taariikhda fog oo caalamka intiisa kalena ay aad ugu khushuuceen intaan taariikhdan ka soo gudubnay ka sheekeynayno waxa laga maarmaan ah ka tashiga sidii aan uga gudbi lahayn caqabadaha jira oo aan taariikh cusubna aanu samayn lahayn si aan iskula meel dhigno su'aalaha hadda taagan iyo aayaha mustaqbalkeena fog waxbarashadu waa gashiga ugu horeeya markaan wax baranayno kaliya waxbarashadu maaha inay noqoto cilmiga sayniska iyo teknolojiyadda ee aad baranaysaan sidoo kalena waa inaad barataan bani'aadantinimada inaad noqoto qof dhinac walba wax ka eega isla markaana aad yeelato dareenka wadaniyadeed isxushmayn iyo isqadarinta iyo inaad mas'uuliyad iska saarto mashruuca dhammaanteenba inaga wada dhaxeeya ee dhisidda dalkeena.